subaxnimadii hore ee saaka ayaa dagaal aad u xooggan waxa uu ka bilowday deegaanka Meegagle iyo Wandalaalax oo dhamaantood hoos taga tuulada Sool joogto oo ka tirsan gobolka Cayn. Dagaalkan ayaa soconayay muddo ka kooban 12 saacadood oo toos ah, waxaana dagaalkani ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dhakhaatiirta Buuhoodle ayaa sheegay in dagaalkaasi ay dhanka Buuhoodle kaga dhinteen 4 qof halka 24 kalena ku dhaawacmeen. dhinaca Somaliland ayaa saraakiisha caafimaadka u xaqiijiyeen 2 dhimasho ah iyo 3 dhaawac ah oo la soo gaarsiiyay dhakhtarka Buuhoodle. Dr. Cawil Cabdi Hiirad ayaa warbaahinta uga waramay khasaaraha dagaalkaasi. saaka dagaalku aad buu u dhacay, dagaalku baa dhacay, laakiin hadda waxaad moodaa in rasaastii yaraatay iyo dhaawacana soo gaarayaaba waa yar yahay tiradiisu. dhaawacan iyadoo Cabdirashidna idin sheegi doono, dhakhtarkuna idin sheegi doono, ilaa 24 maanu dhaawac helay. geerina waxaanu helay 4 baanu helay. qolyaha kale xagga ay iska soo horjeedaan dadkan shacbiga ah ugu yaraan waxaanu aragnay 3 qof oo dhaawaca waanu anaga hayno meelaynay, 2na waanu aragnay geeridoodii. saraakiisha hogaaminaysa ciidamada deegaanka Buuhoodle ayaa guula ka sheegtay dagaalka, waxaana ay warbaahinta u soo bandhigeen 3 gaari oo ah gaadiidka dagaalka, kuwaas ay ku soo qabteen dagaalkii saaka halkaasi ka soconayay. Cabdifataax Kiistiid ayaa warbaahinta uga waramay arrintaasi. waxaa saaka dhacday alasaydii hore ayaa waxaa ceelashii ceel ka mid yimid dad reer miyiga oo dhaanisire ka dhaansada. dadkii dhaanka isla ka dhaansada waxay ku bilaabeen rasaas. taas waan u dulqaadan kari weynay. taas ayaa iminkan dagaalka saaka bilowday. 2 gaari oo yaryar oo qabaala ah oo qoreysaarin gaari suuya inta waanu haynaa. waxa kale oo gubtay oo goobtii yaala gaari beebeeya iyo gaari yaroosna qabaal oo qoreysaarin yahay. inta yar waanu cadeynayna waa meel goobtii bana yaalaan. meedkooduna waan arkaynay, meedku meeshu inuu aad u yaalo waan arkaynay, waan iyaga ahaayeen dhaawac fara badan oo yagaan waan arkaynay. laakiin adigu muhiimadu goobtii hadda waan isku hor fadhinaa. dhanka kale maamul goboleedka Khaatume State of Somalia ayaa ka hadlay dagaalkan maanta, waxayna sheegay in dagaalka ay soo qaadeen maamulka Somaliland. madaxweynaha maamulka Khaatume Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo warbaahinta shir saxaafadeed ayaa ka hadlay arrintaasi. sida aad ogsoontiin ilaa 3 casho hadda isku xigta waxa socday weerar aan kala gol ahayn oo inta badan ku dhacayay dadka reer guuraaga ah, sababtoo ah biyihii bay ka fadhiisteen. dadkaas biyihii bay u diideen, oon bay ku dileen, way rasaaseeyeen, waxay ka qalqasheen xoolihii, dadkii bay argagixiso ku rideen oo ka qaxiyeen dhulkii. waxay ciidamadan maxay tahay Buuhoodle ku sugan runtii waxba badi uma jawaabaan. waxay subax walba ku garaacanaad moodaa inay u qoreen madaafiic bay ku soo tuuraan oo ku ridaan. waxaa intaasi markay dhacday saaka oo u dambeysay markii ciidana loo jawaabi waayay, waxay soo qaadeen weerar toos ah oo 3 aaga. programkooduna wuxuu ahaa inay Buuhoodle qabsadaan. waxaa la leeyahay ninka taliyaha iyo maamulkaasi waxayba ku ballan qaadeen oo ku dhaarteen in ay Buuhoodle qabsadaan, dadkaasna barakiciyaan. runtii inta Buuhoodle gudaheeda ku jirta horeyba dee u barakiciyeen inta tuulooyinka. 3 aag bay weerar ka soo qaadeen saaka markay ahayd 5:15 ilaa 6 meelahaas. Sool joogto meesha balliyada la yidhaaho Meegagle iyo Wandalaalax oo degaankii dadkii waa meel dulbiya la weeye balliyaa awal bay hore dadkii uga soo celiyeen. halkaas bay weerar ku soo qaadeen. dadkii ay eryayeen ee ahaa deegaanka waxay ula soo galeen ama rasaastii baa waxay soo gaadhay ciidamadan Buuhoodle ee Khaatumo. halkaa dagaal baa ka bilaabmay. dagaalka runtii kuma ay guuleysan sida caadada ahaan jirtay. dagaalka maanta ka dhacay gobolka Cayn ayaa ahaa mid muddooyinkii dambeba dadku saadaalinayeen inuu ka qarxo deegaankaasi, waxaana xilligan meelo isku dhow fadhiya labadii ciidan ee dagaalamayay, waxaana laga cabsi qabaa dagaalo mar kale halkaasi ka soo cusboonaada. Cadnaan Saalax Maxamed, telefishinka caalamiga Somalisat, Buuhoodle.